السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawade barnaamijkeena maanta waxaynu ku qaabaan dhigi doonaa xigmadihii cajiibka ahaa ee Luqmaanul Hakiim kula dardaarmay wiilkiisa kuwaas oo aan lagu sheegin Quraanka Kariimka. waxaynu barnaamij hore ka soo sameynay taariikh nololeedkii Luqmaan iyo dardaarankii uu siiyay wiilkiisa kaas oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku sheegay Quraankiisa. haddii aadan daawan walaal qaybtaas haatan ka daawo qaybta description-ka. Luqmaanul Hakiim hadaladiisa oo idil waxay ahaayeen kuwa murti ah taasina waxa inoogu filan inuu rabbigeen u gaar yeelay suurad magaciisa lagu suntay. balse intaanan gudagelin barnaamijkeena maanta fadlan walaal riix subscribe-ka oo furo gambaleelka si aad ula socoto wanaagyada inuu hawada ku soo marin doono. mahadsanid. wiilkaygiiyow ha ku qoslin wax aadan ka yaabin, hana socon aadaab la'aan, hana su'aalin dadka wax aanan ku qusayn. wiilkaygiiyow haddii ay dadku ku faanaan hadal wanaagooda adigu ku faan aamus wanaagaada. subax waliba iyo galab kasta wuxuu carabka xubnaha jirka ku yiraahdaa sidee tihiin, waxayna ugu jawaabaan reereen ayaan ku dul sugannahay haddii aad naga tagto adiga. wiilkaygiiyow haddii aad boqor ama qof magac leh aad la fariisanayso dhexdiina ka yeel qof meel uu fariisan karo, waayo waxaa laga yaabaa inuu u yimaado qof kaaga saameyn badan agtiisa kadibna uu boqorku kugu yiraahdo siko ama ka wareeg deedna sharafkaagii uu nusqaan ku yimaado. wiilkaygiiyow nolol faqri ah misana leh amni ayaa ka wanaagsan nolol deeqtoon misana leh cabsi. wiilkaygiiyow u noqo addoon akhyaarta hana noqon mid ay weyneeyaan dadka xumaanta u saaxiibka ah. wiilkaygiiyow waxaan kaaga digayaa inaad la saaxiibto saaxiibka xun, waayo muuqaalkiisu waa uu qurxoon yahay raadkiisuna waa uu xun yahay. wiilkaygiiyow tol weliba waxa ay leeyihiin ee adigu ha noqon asxaabtaada eygooda. wiilkaygiiyow haddii aad tukanayso ilaali qalbigaaga, haddii aad cuntaynaysan ilaali dhuuntaada, haddii aad guri kala joogtana xafid araggaaga, haddii aad dadka ku dhex jirtana ilaali carabkaaga. wiilkaygiiyow waxaan kaaga digayaa inaad badiso cudurdaarada, waayo beenta in ka badan ayay cudurdaaradu ku dheelaan. wiilkaygiiyow weligaa ceel aad biyo ka cabtay ha ku tuurin dhagax. wiilkaygiiyow carabkaaga kaga caado dhig allow ii dembi dhaaf, maxaa yeelay waxaa jira saacado aan la soo celin ducada. wiilkaygiiyow shimbir ku jirta weelkaaga ayaa kaaga khayr badan dibi ku jira weelka qof kale. wiilkaygiiyow labo ha xasuusan weliga xumaanta ay dadka kugu sameeyeen iyo ixsaanka aad adigu dadka u samaysay. wiilkaygiiyow ha noqon ruux macaan ee la liqo ama ruux qaraar ee la tufo. wiilkaygiiyow alla ka cabsiga ka dhigo tijaaro, faa'iidadeeda ayaad heli badeeca la'aan. wiilkaygiiyow iska ilaali deen, maxaa yeelay dharaartii waa dulli habeenkiina waa tiiraanyo. wiilkaygiiyow waxaan qaaday bir mana aanan arag wax ka culus daris xun, waxa aan dhadhamiyey qaraar oo idil mana aanan arag wax ka qaraar faqriga. wiilkaygiiyow haddii aad doonayso inaad walaal la noqoto ruux marka hore ka caraysii, haddii uu kuu garsooro kolka uu caroodo la noqo walaal, haddii uusa kaa garsooro iska ilaali. wiilkaygiiyow ha dib dhigin toobo, waayo mowdku waxa u yimaadaa si lama filaan ah. wiilkaygiiyow qofkii dadka u naxariistaa waa loo naxariistaa, qofkii aamusana waa la nabadgeliyaa, qofkii khayr sheegana waa laga faa'iidaystaa, qofkii aan carabkiisa xadidinna waa uu murugoodaa. luqmaan waxa uu ku yidhi wiilkiisa, wiilkaygiiyow beeni qofkii kugu yidhaahda shar ayaa lagu damiyaa shar, haddii uu yahay mid run sheegayana bal dab ha ku damiyo dab, fiirina midkood midka kale ma daminayaa, laakiin khayrka ayaa damiye sharta sida ay biyuhu u damiyaan dabka. wiilkaygiiyow oraahyadaadu ha noqdaan kuwo wanaagsan, wejigaagana had iyo jeer ha ahaado mid furfuran, waxaad noqon doontaa qof ay dadku wada jecel yihiin. wiilkaygiiyow waxa ugu fiican ee aad adduunka ka faa'iido waa saaxiibka wanaagsan, waxaana ku soo xiga gabadha saalixadda ah. wiilkaygiiyow haddii ay calooshaadu buuxsanto habfikirkaaga ayaa hurdaayo, waxaana hoobanayo xigmadahaaga. wiilkaygiiyow haweenayda wanaagsan waa sida taaj saaran madaxa boqorka, haweenayda xunna waa sida shay culus oo saaran dhabarka oday duq ah. wiilkaygiiyow adduunyadu waa sida bad nool ah, waxaana ku maashooday dad fara badan, ee doontaadu ha ahaato alla ka cabsi. wiilkaygiiyow laabtu waa sida beer oo kale, ee ku beer oraahyada wanaagsan, waayo haddii aadan ku raaxaysan miraheeda waxaad ku raaxaysan doontaa dooggeeda. wiilkaygiiyow u mahadceli qofkii kuu nimceeyaa, una nimceey qofkii kuu mahadceliyaa, waayo nimcadu ma raagto haddii aad iskala weynaato, mana baaba'do haddii aad ku mahdiso. wiilkaygiiyow saddex lama ogaado ilaa saddex mooye, murtiilaha lama ogaado ilaa marka uu caroodo mooye, geesigana lama garto ilaa goobta dagaalka laga gaaro, walaalkaagana lama garto ilaa ay baahi timaado. mar la weydiiyey Luqmaan yaad ka baratay xigmadahan ayuu ku jawaabay juhalada ayaan ka bartay,
waayo markii aan xumaantooda arko waan ka fogaadaa. Luqmaan ayaa ku yidhi wiilkiisa, wiilkaygiiyow hal mid ayaan kaaga digayaa, ay ka digtoonaadaan kuwa digtoonida u saaxiibka ah. Wiilkiisa ayaa yidhi, waa maxay aabbe? Luqmaan ayaa ugu jawaabay, waxaan kaaga digayaa inaad dadka isugu muujiso mid Rabbi ka baqa, qalbigaaguna uu yahay faajir iyo mid xumaanta u saaxiibka ah. Daawade, barnaamijkeena maanta halkaan ayaan ku soo afmeeraynaa. inta aan barnaamijkan oo kale amaba ka qiimo badan ku wada kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa, dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.